ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay tababar joogto ah ay ku sameynayaan garoonka kubadda cagta ee jaamacadaha ee degmada Hodan kaas oo ay ugu diyaar garoobayaan ciyaaraha Sakafa sanadka 2017 ciyaartoyda qaranka Soomaaliya oo lagu naanayso wiilasha xidigaha badweynta Hindiya Ocean Stars ayaa tababarkooda waxa uu yahay mid joogto ah waxaana ugu diyaar garoobayaan tartanka Sakafa Senior Challenge Cup ما شاء الله سعد كيرش هذا ما صنتها إن حلقة خارج الصومالي أيام مش جرون جامعة توبر كسوبيو وحنا كمية حلقة خارج الصوماليا إن توبر في عن وقت ونكسنا أنا غادنا ما شاء الله سعد كي توبر كأتي أذن وفيليا متكلم عن الصومالي أو في عنا أنا سنام عن فريق أو توبر سي عن سي ونكسنا نصيو قلب يسوح توبر نوفل نوايا سنة ما شاء الله قلب سنة كان محارجيننا أن ودن كان هو جول أنسوين ما شاء الله عيرت أذن يدو فرنتاي واسكو خنعسين واسكو فرحسين سي في عنا شخص وقبطان إيجو توبر قناع سنسوح إيجو فرحة خصلا يحافظوا الأذن قلب تنسيدو كلاسي وماذا الله ما شاء الله سي في عنا أوريجيننا سنة كان جول كانتون أمد صومالي ميل بيجوكتنا حق رجينا إن طيران هو إيو جول بيو صعب إن نودا سنة كان محارجيننا جول سوين إن شاء الله macallimiinta qaranka Soomaaliya uu horboodayo macallin Maxamed Cabdulle Faryare macalinka koobaad macalinka labaad ee qaranka macallin Salaad Faarax iyo macalinka saddexaad ee Shirwa ayaa tababar joogto ah waxay ku sameeyaan isla markaana ciyaartoyda ay ku siiyaan garoonka jaamacadaha tababarkan waxay ugu diyaar garoobayaan ka qaybgalka ciyaaraha Sakafa sanadka 2017 محمد حسن علي شينا أفجوية iyo داود عبد الله تبال waa laba xidig oo kamid ah xidigaha qaranka loogu yeeray muddo dheer kadib Afgooye waxay ugu dambeysay qaranka inuu matalo sanadkii 2013 hadda waxa uu kamid yahay magacyada cusub ee qaranka muddo ugu dambeysay ee uu yeeray macallin Faryare waxaan kula kulmay garoonka kubadda cagta ee jaamacadaha waxaan weydiiyay dareenkooda ku aadan in ay muddo kadib ay matalaan qarankooda waranta bismillaahir rahmaanir rahiim horta ku faraxsanahay inaan muddo kadib qaranku soo laabto waxay tahay maxaa la horun cusub ay tahay bilaawanayso marka aad ugu faraxsanahay inaan qaranku soo laabto waxaan rajaynayaa insha Allah isbedel fiican inaan sanadkan soo hoyno taatiinka waa 2013 kadib waa sanadkii xigay waa safarka waa baaqday waxoogaa loo safar kadib in la baxaa urjaynaa marka waxoogaa waa ka maqnaay alxamdulillah dadana ku soo laabtay wallahi deergo fiican aan deergarowna taasoo tahay maxaa la inaan sanadkan meel fiican tiigsano marka soo xigay labta baran sameeyna dadana waxaan rabnaa inaan sanadkan isbedel fiican soo hoyno insha Allah runtii rashka waa mahadsantiin bahda Muqdisho Cable TV oo nagu soo booqatay saaka garoonka jaamacadaha runtii saaka waxaa nagu soo booqateen tababarka national teamka ee xulka qaranka waddanka Soomaaliya Sakafa ka dhici doona waddanka Nairobi caasimadda waddanka Kenya runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay xulka qaranka waddanka Soomaaliya in aan matalo insha Allah ta'ala sanadan waxaan rajaynayaa in aan guulo wax ku ool aan ka keeni doono bariga bartamaha Afrika runtii muddo bil ku dhawaad ayaan tababarka wadnaa taasoo qayb oo nooga dhigay macalinkeena Maxamed Cabdulle Faryare in aan national teamka aan wax fiican sanadan aan soo hayno taasoo aan caalamiiteeno galab iyo subax rashkow tababar aad iyo aad u wanaagsan ayaan ku qaadanaa garoonka jaamacadaha runtii macallin Faryare waxa looga bartay in national teamka markii oo wadaba guulo wax ku ool uu ka keeno inkastoo groupka Soomaaliya ee mar walba ay ku hartay insha Allah sanadan waxaan rajaynaynaa in aan bariga bartamaha Afrika aan meel fiican aan ka tiigsan doono insha Allah tababarka sidoo kale waxa sameynaya ciyaaryahanada ugu fiican ee qadka dhexe waxaana xidigaha qaranka Soomaaliya u badan laacibiinta kooxda dekada oo ku soo guuleystay horyaalka sidoo kale waxa tababarka sameynaya goolhayaasha da'da yar oo ka mid yahay goolhayaha kooxda dekada Saciid Yamani waxa tababarka ka maqan laacibka lagu magacaabo Mustafa Nakuja kaasoo hadda ka cabanaya duray ama hergab haya waxaana uu ka baaqsaday tababarkii xulka qaranka Soomaaliya waa mahadsantahay adiga iyo bahda telefishinka Muqdisho Cable waa soo dhaweynayna waana ku faraxsanahay runtii kulankiina runtii xulka qaranka ee Soomaaliya sida aad sheegtay wuxuu ku jira diyaar garowgii tartanka Sakafa Senior Challenge Cup 2017 kulliga ballantu ay ahayd in lagu qabto waddanka Kenya magaalooyinkiisa kala duwan
soo far xoogaa yar macnaha waxaad u malaysaa saameyn yar oo iska ah doorashadii Kenya waxaas inay jirto laakiin mar dhow waxaa la filayaa in jadwalkii la ogaado iyo in kama dambaysta meeshii la go'aamiyo lagu qaban lahaa in meeshii Kenya loo deenayo in meel kale lala aadi doono runtii diyaargarowgana waa mid aad u fiican waxaan u diyaargaroobaynaa inaan qayrkeenna dalalka dariska aan nahay isku gobolka aan nahay reer Sakaafo inaan wax la soo qaybsanno insha Allahu tacaala runtiina xulka diyaargarowgii ugu dambeeyey oo macnaha uu ugu diyaargaroobayo because inay kullee bisha November dhamaadkeeda ciyaaruhu bilaaban doonaan ayuu qorshuhu haddaan waxba iska bedel marka ma soo far anaga aad iyo aad u fiicannahay hawsheena meel fiican noo maraysaa xilligu tababarku macnaha tiimku ma haraysan laakiin 2 session ayuu sameeyaa oo full ah subaxdii iyo galabtii subaxdii 3 saacadood ayuu shaqeeyaa galabtii 2 saacadood shaqeeyaa taasoo macnaheedu yahay in maalintii aan cover gareynay 5 saacadood tababar ah taasoo nagu filan marka loo fiiriyo cimilada aan tababar ku sameynayno ciyaartooyda xulka qaranka maanta tababarka sameynaysa waa 24 ciyaartooy 20 ciyaartooy caadi ah iyo 4 goalkeeper runtii xulka qaranka ee Soomaaliya ciyaartooydii hore iyo ciyaartooydii dhexe iyo waxa ku soo jira ciyaartooyda da'da yarta ah sababtoo ah baleenigu waa arrimo kama maarmo energy activity kama maarmo future kama maarmo ciyaartooy mustaqbalka qaranka in loo helo kuwa bedelaha kuwa hadeertaana inuu way aragiin ah oo misalan xaaladdu markay mararka qaarkood isbedesho nin way badan soo joogay oo macnaha aragtidaas macnaha inta akhriyo wax ka bedeli kara waa loo baahan yahay marka runtii teamku waa team balanced ah kalsooni buuxdana dhamaantood ku qaba ciyaartooyda xulka qaranka waxoogaa wuu xanuunsan yahay runtii aad iyo aad aan uga xumahay waqti uu tababar adag ku jiro iyo diyaargarow adag ayaa malaria ee ku dhacday runtii daawooyin fiican inaan u helnay oo xiriirka Soomaaliya kubadda cagta uu iibiyey haddana xaaladiisa aad iyo aad u fiican tahay insha Allah bari inuu tababar bilaabaan rajeynayo gruubku waa macnaha kale waxaa la diyaarin doonaa insha Allah tacaala markii la isla ilaamiyo goobta lagu qabanayo tartanka gruubyadu waa iska sahal Sakaafo wadamadeeda kulleeba waa iska 4 gruub midum kamid ayaa noqon doona 3 gruub min 4 iyo gruub 3 ayaa la noqdaa badanaa haddii aysan kooxo la martiqaaday aysan jirin dalalka dariska oo nabad dariska sida nimanka la yiraahdo Kasaafo oo ka socda macnaha koonfurta Afrika iyo qolooyinka kale oo misalan mar loo yeero Malawi sida Zambia iyo macnaha lagu martiqaado laakiin Sakaafo waa 11 dal oo kulli waxaan jeclahay inaan gruub anaga aan macnaha geli doono mid kamid ah ma runtii staff dhan ayaa shaqeeya runtii macallimiinta Soomaaliyeed way hogaanayaan sanadkan inay macnaha wax alla wixii ay qaban karaan oo karaankooda ay xulkooda u qabtaan ilaa 7 macallin ku shaqeynaa waxaana macallinka macnaha xulka qaranka macallinka labaad waa macallin Salaad macallinka saddexaad waa macallin Shirwac waxaa kaloo jooga macallin Tareega iyo macallin ii sheeg Salaalax Faarax Muxudiin macallin Daada jooga iyo macallin Xasan Xuseen oo runtii nin ciyaaryahan weyn oo way araga ah Nuur Maxamed Amiin ayaa jooga asna la mid ah oo ragga naga taageera xagga inaan macnaha toddobaadkiiba mar noo qiimeeyaan wareer dhahay mustawayna ka warrama meel shaqan soo qabanay marka aad iyo aad runtii isugu kalsoonaa intaas waxa noo soo dheer agaasimaha farsamada xiriirka Soomaaliya kubadda cagta asna nin macallin awil oo si joogta ah xulka reportkiisana macnaha aan ugu geyno asigoo noo soo kormeera waxay ku jiraan toddobaadadii ugu horeysay oo ku aadan tababarka ugu diyaar garoobayaan ka qaybgalka tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Sakafa Senior Challenge Cup kaas oo sanadkan 2017 lagu wado in lagu qabto wadanka Kenya laakiin tartankan ayaa hadda sida muuqanaysa waxa ku dhacay dib u dhac waxaana qorshaha uu ahaa in bishii hore ee December tartanka waa bishii hore ee ku aadan in sanadkan uu ka furmo dalkaasi Kenya ee bishii hore October tartanka ayaa waxaa saameyn ku yeeshay doorashooyinka wadanka Kenya dhawaan ka qabsoomay waxaana hadda la sugayaa jadwalka saxda ah ee halkii lagu qaban lahaa tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Sakafa Senior Challenge Cup ciyaartooyda halkan tababarka ku sameysay ee qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay sameeyaan subax walba iyo galab walba tababarka ugu diyaar garoobayaan ciyaaraha Sakafa mana ahan markii ugu horeysay sanadkan ciyaartooyda qaranka oo lagu naanayso Ocean Stars ay matalaan way ka qayb galaan tartankan Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Rashka Muqdisho Cable TV garoonka kubadda cagta jaamacadaha magaalada Muqdisho